qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay kadib markii weerar gaadmo ah ay koox la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ku qaadeen deegaan lagu magacaabo jeexdin oo hoostaga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. shacabka deegaanka ayaa iska difaacay maleeshiyaadkaasi waxaana lagu soo waramayaa inay goobta maleeshiyaadku uga carareen qof meyd ah oo huwan calankooda. faafahinta warkaasi waxa magaalada Gaalkacyo inooga soo diray wariyahana Burhaan Maxamed Cabdi oo booqday goobta dhacdadu ay ka dhacday. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay inta la og yahay in ka badan 8 qofna waa ku dhaawacmeen kadib markii xalay dable hubeysan ay soo weerareen tuulada jeexdin oo 15 kiiloomitir dhinaca bari ka xigta aeroboortka Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo. deegaankan oo ay degan yihiin dad xoolo dhaqato ah iyo beeraley ayaa dhinaca galmudug waxa kaga yimid maleeshiyaan hubeysan kuwaasi oo saaka la soo bandhigay nin meyd ah isla markaana ku jeenay qarsan calanka ururka al-shabaab lagu yaqaan. waxaana halkaasi booqday mas'uuliyiin ka socotay dawladda Puntland iyo saraakiisha ciidamada. waxaa halkaasi saxaafadda kula hadlay taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka jeexdin wuxuuna ka warramay sidii xalay shaqadii dhexe dhacdadaasi u dhacday iyo weerarkii ay la kulmeen. waxay u dhaceen xalay 10 saac habeenimo markay ahayd nimankii nabadiidka ahaa oo wadankan Puntland weligood ka dagaalami jiray baan soo weeraray rag ilaa 30 gaar hayay ahaayeen ciidankay soo weerareen xilliga laba ratiba oo difaac agtiisa fadhiday iyo laba askari oo dhaawacantay baa anaga wax khasaare aan gaaray ayaguna rag bay ka tageen rag waxay ahaayeen aduu tiradoodu 30 nin meelahaas xilligaasna soo weerareen waana laga guuleystay oo ciidanku si fiican isaga daafacay hubkay isticmaalayeen kulligu waa naqaanaa hub la yaqaan weeye waxay isticmaalayeen qoryaha small armska loo yaqaan oo aakaha iyo BKM-ka iyo qori la yiraahdo RBJ7 waxa uu heliyay qori la yiraahdo jabshi qoryahaas iyo bumbada gacanta laga tuuro iyo bay isticmaalayeen waa qoriga xabadahan leh xabadihiisu jabsha la yiraahdo qorigaas nimankaasi qoryahaas ku dagaalamayeen xalay inay nabadiidkii ahaayeen hadda waa wax caan ah oo waaba aragtaan oo waxa yaala meeshan sawirkii iyo ayagii oo calankii madoobaasita oo wax ku qoraayeen meydka meesha yaaliya niman ay qaateen oo jiiteen oo baabuur u timid oo meel dhow intay ugu timid ay qaateen ba way jirtaan. nimankan hadda calaamadan wata oo cusub oo hadda noo yimid meel ay ka yimaadeen kullay gobolka Mudug bay ka yimaadeen laakiin meel ay ka yimaadeen in cadow ay ahaayeen oo weligeeyaan u diyaarsanaan jirnay ma ahane hadda meel gaar ah oo ay ka soo dhaceen oo degdeg ah aan ku ogeyn oo ay naga soo weerareen ma naqaan. Burhaan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalkacyo.